suugaan mar urushaa umadiimideeyaa alifaadi isugu keen marna kala irdeeyuhu ehelmida ku kala didi mar abwaan jacayl helay ku ammaan gayaankii mid amaahday arar hore isir iyo ab aan geyin iil iyo xabaalgee mar adoon islaameed ku ilaah baryood gabay anfac ruux ku doorsaday markuu iibsay shilimaad af wax cunay xishoo tiri aqli weliba tamartii docay erey-garaadkii anna maansa-uulashada alifaadda gabayada dhaxalkii awoowaan ku ilaashadaayoo arartaydu dhaqankiiyo afka hooye wow hiil siday aniga ila tahay waa aana reebtada eed lagama sheegtada u tamboogdawaysada isku soo dhawaysada istirkeed midaysada ee xahala dirirtada irkanaysa diintiiyo xaqa lagu ilaysgudo afhayeen nin uma ihi mana ihi abwaanada danaystuhu adeegsado ifafaalo nabad iyo isku duubni qaran baan ku unkaatixdaydoo isir uu cadaawuhu oday u qaybshaan ku uruurinayaa iba furashadaydiyo allaylehe ujeeddadaana baara dulucdee ubadkii dalkaygoo qaba uur ku taalloo ilma dhabanka qoyso oo indhahooda murugada laga eegan karayaa ii soo ergoodo igu tidhi abwaanow aqligiiyo garaadkaa kuu soo irkaday oo iin baan tirsanayaa afka laga dabooshay utuntiiyo dhibtaan qabo maruu nuunka gaadhsii waxay tidhi abwaanow waanooyin waa hore anigoon ifkaba iman adduunyada ka dhacay baa lay saaray oogada eed aanu gelin ruux laga aargutaanahay dhal aan aayatiin iyo anfac looga tegin oo isir dhalashadoodii ka asqowday baanahay ubad waalidkoodii eex iyo qabiil iyo aragtiyo khiyaaliya inta ay ku ababsheen ambadlumay ayaanahay dhal islaama baanahay allaheed ilaah yahay udgoonuhu u nebi yahay iimaanku taam yahay inamiya hablaanahay owlaad gayaan oo isku ooman baanahay misna inan gumeed iyo waxaan aayad iyo diin ama eebba ina farin oraah kala dhex joogto oo isku diida baanahay isku duubnidaydaan itaal xoog ku leeyahay waxse ahay ayaan daran danaystaha agnaanka inba meel ku ooto ha israacin lagu yidhi aar dhaawacaanahay rabo inuu istaago oday kaabaqabaliya adin iyo lug haysto oo ikhtiyaarka laga xidhay dagaal oogayaal iyo umuldoox iyo hodayaan ka hayaa ilaalo qarankii asturi jiray ubadkiiyo dhashiisaa arrad iiga dhacayo al-shabaab rag sheegtoo afka mara ku duubtaa isbiime yidhiyo arligiiyo dhulkaygii afrikaan madow iyo amisom rag sheegtaan magan oogu ahayo waxaan ahay awood uu isticmaalo cadowgoo arligeeda lagu gubo dhal aqoonta barashada aflaxdoo waxaan ahay ixtiraam ku weydoo boos ku istaahilay abeed iyo mid jaahila alif iyo ba-aan qorin abtirsiin ku helay oo idil suuqa wada tuman markii aayadtalisiyo laga xidhay ilfurashee laga owday himilada arligiiyo dhulkeedii dhal isaga aroortoo iimaansan weydoo saxaraha ku oontoo ku idlaatay badahoo meydkeedu aas iyo astur waayey baan ahay iba furadka guushiyo ambaqaadistaydaa u afduuba nacab oo aqligiyo garaadka aha adeegsan layidhi afa iyo qabiil baa lay geliyey uurkoo intii aan la ababee efka ugu jeclaa iyo ardaydaan la koray baa layidhi ugaarhsoo ehel iyo xigtaan ahay iskumaada lagu yidhi ubax yaman baan ahay engagoo qallalayoo afrikada ku yaal gees dhirtaygu agtaallaa eegmada jalleecada waa lagu ildoogtaa annageed abaaruhu unugyada jareen oo oonbixisla' baan ahay aasaaska qarannimo udub lagu dhisaanahay unkayaasha taariikh umad leedahaanahay dhaxalkii awowgeed ubakaydisaanahay irmaan caana badan iyo agoondeeqa baanahay is ammaani maayee ilays lagu gudaanahay afgobaadsan maayee waxaan ahay astaan nabad aayaha dambeetee loo aayi dooniyo waxaan ahay adeegtada ammaanadu sugayso anficii dalkeedii af hasaarin lagu yidhi ergadayda tabashada ma idlayn karaayee eedaan tirsanayo iyo aan uurkutaallada isku soo uruurshee waxaa iilka ii qoday intaan soo akhriyey iyo 400 jibaarkii igu eeganayo waxaa iigu sii daran kuwii layga uumee rabbi iga abuuraa ifka igu xabaalo iyagaa asaagay iga reebay mooyee ilbaxnimada dunidaan la aqoon tartamilaa adiguna abwaanow inta weli ilduufka inta weli afduubka amarada danaystaha aqbal iyo guddoon kale idil waxaad tidhaahdaa ubadkii dalkaygow arxalnaawayaashii ciiddaada iibsaday adigoo uliya diir eheloo walaalaa isku kaa adeegsaday dhalin yahay ha aaminin 14 wajiiliya aqoon laawe iyo tuug niman eex ka ganacsada axdi been ku sheeg iyo dulmi ay ansixiyeen 4 iyo nus qaybsiya dhalin yahay ha aaminin shirkan aadiyadaysana loo aado dibadaha shisheeyaha abaabula ee kii arliga guba abaalmarinta uga dhiga umarada dalkaaga ee abid guusha kula rabin dhalin yahay ha aaminin oday reera lagu falay abtirsiinta kugu hoda dhalin yahay ha aaminin saxafiga anshaxa xumi waa kala irdheeye afka daacad wariyaha idaacada qabiiliya u adeega reer hebel dhalin yahay ha aaminin isku tiirsanaan baa ifka lagu baraaraa awood laysu geeyaad nacab uga adkaataa
ubadkii dalkayga waa inaad iskaashiyo isku duubni wada jira u dhahdaan qabiilkii idinkala irdheeyo waxaad shalayta eedeen ka ilaahay baridaan waa inaad israacdaan idilkiin midowdaan isla weyni beentiyo oday kufaankiyo aniga ah reer hebel waa inaydun aastaan inta aaday dibadii adduunyada ku faafo ummadaad la nooshahay idin soo dhaweysay arligooda ugu timid ha arkaan islaam iyo dad akhlaaqiyaad liyo isirgoba inaad tahay dalkeenii udgoonayeynaan iloobina kaalintii adkayd iyo sumcaddii iyo asluubtuu ku lahaa adduunyada astaanteennii qarannimo waa inaynu unugnaa urugadiiyo ciilkiyo rabbigay inkaaraan kuga eegan maayo marun buu ilaahay kuu furay albaabada ridaha wanaagga ee iimaanka weheshada hiishada adkaysiga aan soo afmeeree awood laysu geeyiyo isku duubni buuxdiyo waa inoo ul iyo diir aqbal iyo ijaabiyo aamiin weeye ducaduna alle saaran taladuna